kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiin baddaawadayaal sida muuqaalka horeba ku arkayseen waa professor ka imaaday dhankaasi iyo waliba Mareykanka waa nin jaamic ah waa nin bartay sidoo kale cilmu nafsiga waa nin sidoo kale arrimahan takhasus ku ah arrimaha sida dadka jinsiga guursaday iyo waliba sidoo kale tacliinta meel lahaataba waa nin aqoon dheeraad u leh waxgaradna ah ninkani ayaa mar la wareysanayay ayaa wuxuu sheegay qaabkay dawladda ugu hortagi karto iyo waliba sidoo kale dadka jiilka ah ee soo kacay si aan loo halaynin wax khaldan loogu awaabinin asaa waxa uu sheegay uu ka waramay siday wasaaradda tacliinta iyo waliba sidoo kale dhammaan dadka xilka ka saaran yahay waxbarashada in ay ilaaliyaan ardayda iyo waliba sidoo kale waxa la barayo sidoo kale ninkan oo ah nin oo way arag ah sidoo kale waxa garada ayaa waxa intaas ku sii daray in meeshaasi dugsiga abaarso iyo waliba sidoo kale jaamacadda barwaaqo dad intii dad baadiri ah looga dhigi lahaa madax intii laga daayo dadkaasi dad muslimiin ah oo dadka diinta islaamka baraya cilmi kalena u faa'iideynaya laga dhigo madax haddaba waxa warkayaan ku daalinayeen waxa iskaga kiin dhaxbaxaya professorkan wareysiga uu dhiibay iyo waliba sidoo kale fikirkiisa uu ka qabo dugsiga abaarso iyo waliba jaamacadda barwaaqo daawasho wacan taagan tahay ku saabsan ajaanibta iyo arintan diinta ee shakiga looga qabo inay faafinayeen waxyaabo la xiriira diinta masiixiga maxaa laga baran karaa maxaa se aad adigu ilaa iyo hadda ka fahantay arinta socota horta marka hore cabdishakuurow hadiya jalaal waxaa jira halku hayn baa jirta ama kelmad baa jirta la yidhahdaan qofku haddaanu taariikhda baran ama taariikhdiisa baran waxaa ku qasaba ama nasiib darro ku ah inuu kusoo noqdo taariikhdii raadkiisii dib u raaco waxyaabaha cajiibka ah ee aan arkay maanta ee tan aan ku xasuusin karta waxa weeye inuu 1938 oo markaa cariga Somaliland ay xukumayay dawladda isticmaalka Ingiriiska loo oran jiray waxay soo magacawday educational officer oo ah inuu tacliin laga bilaabo nidaam tacliimeed in laga bilaabo carrada Somaliland ninkaasi wuxuu nin dhalinyaro ah oo Nigeria ka shaqeeya oo doonaya inuu isdhiso marka isagoo Nigeria iska jooga baa nin baa u yimi markaas uu ku yiri waxaan doonayaa meel adigu aad magacaaga ku sameyn karto oo from scratch maana waxba kaaga horeyn inaan ku geeyo ka waran buu yiri Somaliland ninkii markuu yimi wuxuu bilaabay inuu magaaladii wadankii dhex marmaro oo de wadankii bal diraasad ku sameeyo waxyaabaha la yaab kale hadaba ninka la kulmay ama ninkaas dadkeenu siday uga ficil celiyeen ninka imaginkiisi waxay ahayd markiiba waxay soo ogaadeen ninkaas inuu aabihii baadar yahay awoogiina baadar yahay wadadkii xilliga joogay adeeg cabdishakuur xilliga internet ma jirin wax ma jirin waxay ahaydana way soo ogaadeen within muddo yar baa lagu ogaaday ninka inuu aabihii baadar yahay ninkii Somaliland oo dhan baa gariirtay markii la ogaaday aabihii inuu baadari yahay isagu baadari ma aabihii baa la ogaaday inuu baadari yahay Somaliland oo baa gariirtay min bari ilaa iyo galbeed ninka waxaan maray in la oran jiray magaciisa way Randall something baa la oran jiray nin dhalinyaro abu ahaa waa ninkii ka furay iskuulkii ugu horeeyay magaalada Berbera iskuul laba class oo laba qol oo yar buu furay waa ninkii uu la shaqeeyay markii dambe ninkii la oran jiray father of education Maxamuud Ahmed Ali waxa ka dhacday mar qaarkood mar uu yimi magaalada Burco uu doonayay inuu adigu soo kormeerayo iskuulla ku yaalay meesha in shaqaaqadii halka dhaceen dad ku dhintay xitaa dadka nacaybkiisa ninka nacaybkiisa iyo wuxuu wato la diidanaa wuxuu soo bandhigay waxyaabo badan oo dadka horta ka yara horeeyay marka bariga wuxuu soo bandhigay af Soomaaliga in Latin lagu qoro waa 1938 culimadii way diideen iyo dadkeenii markaa joogay way arag ahaa ama cilmiga lahaa ama tacliinta lahaa ama dadkii fiirada aragtida dheeraa iyagoo u sareynaya oo leh anagu waxaan doonaynaa afka Ingiriisiga iyo af Soomaali in carruurteeda iyo af Carabi bas mooyeen wax kale lagu baro marka taasi waxay ku tusaysaa sheekadan inaanay sheeko maanta ahayn waa sheeko soo taxnay waa sheeko maalin bas dadkeena wuxuu lagu teerigareynayay wuxuu kolba si yar loo soo galayay dadkeenuna
haddaad dib u noqoto taariikhda oo aad akhrido waxyaabihii laga qoray taariikhda ilaa iyo buuggii ugu horreeyay laga qoray Soomaalida la oran jiray First Step for on East Africa oo la qoray 1800 baan u maleynaya iyo waxay ku tusaysaa dadkeenu inay qof walba wuxuu ka markhaati kacaya dadkeenu inuu yahay dad dhaqankeeda iyo diinteena labadaba ku adag oo aan ninbaa wuxuu qoray wuxuu yidhi waxaan garanayaa nin 40 sannadood Soomaalida ku dhex noolaa oo hal qof ka bedelay diinta taas waxaa ku tusaysaa dadkeenu halkay diinta ugu adkaayeen haddaba nasiib darro waxaa oo aad la yaabaysaa waxa weeye tii mid la midihi 80 sannadood ka bacdi inay hadalhayn tii la mid taagan tahay waayo markaa eeg wasaan kuu sheegay wasaaradii may jirin wasaaradda tacliini may jirin niman ingiriisi iska xukumi jiray wadanka waxay doonaan bay samayn jirin laakiin dadkeennaa foojigna dadkeena dhaqankooda ku adkaa dadkeena wax walba oo aanay raalli ka ahayn oo dhaqankoodii ama diintoodii waxyeeleynaya ka hortegi jiray maanta oo aynu wasaarad leenahay oo wasiiro leenahay oo tacliintu ay dee 100% dhaaftay halkii berigaa taagnayd inta berigaa wax akhriyaysa dee wax yaroo kooban bay ahayd internet muu jirin waxaan iminka dee dunidu waxay noqotay guri qol yar bay noqoto qof walba qofka kale wax laalo xudoona koobi maanta oo aynu halkan taaganahay oo 2021 inay tan tii 80 dhacday inagu teerigelay in maanta laynagu tiragalay mid ka tii ka daran oo ah ma aha nin aabihii baadari yahay ee in la yiraahdo gabadh baadariya ya maamulaysa iskuul dad Soomaaliyeed oo muslina oo ay kala dhaqan yihiin oo kala diin yihiin Cabdishakuur mid baan ku sheegay waxa weeye dad baa koonaya waxa imka waxa leeyahay abaarso waxay soo saar waxay ku leeyihiin way ka shaqeyn jirtay de qofku adab diintiisa ma bedelo gabadhan baadarnimadu waxa weeye waa wax loo go'o weeye baadarnimadu ma aha shaar kolo la saaro kolo la gashanayo ma baadarnimadu waa commitment ilaa iyo umriga oo dhan soconay qofka baadariga waligiiba waa badar hay oranin waa bishabariga bariga baadari ahayd hay oran may ka maqlay hay oran baadari laakiin qofka baadariga waligiiba waa baadari waxay ku tusaysaa markaa Cabdishakuur oo nasiib darrada iyo ayaan darrada aynu maanta joogno iyo saynu isu dhiganay iyo halkaynu maanta taaganahay laakiin aadanu meel la oran karin qofku ama baadari ha noqdo ama masiixi kalaba ha noqdo haddii uu shaqo Soomaaliland u yimi ka duwan mid diineed oo aqoon ama science ama wax kale la xiriidha oo uu tii u gudanayo maxaa loogu xoqayaa markasta arrinta diintu maxay macno u leedahay waxay u macno leedahay ninkani ma aha shaqadu qabanaya ma aha shaqo dee waa shaqadu qabanaya waa shaqo ku leh soo korinta ajiyaasha iyo next generation waa shaqadu qabanayaabaan yaa ah shaqo sensitive dowlad kastaaba iyo dhac iyo shacab kastaabana waxyaabaha uu ilaaliyaabaa jira oo uu ka ilaaliyo in dibadda wax lagu beerto marka qofna wasan ku sheegay qofna shaqadiisa asalka ahayd oo naftiisa u huray kama tegayo marka waxyaabaha aan kuleeyahay waa loogu xoqaya waxa weeye shaqadu hayaabaa waxay u baahan tahay feejignaan gaara in lagu ilaaliyo waayo waa caruurteennii iyo ilmaheenii weeye in wax lagu shubtana dooni mayno waayadan waxaad baratay cilmiga horumarinta tacliinta sidee baa dowladaha islaamka ama dowladuhuba ay u ilaaliyaan waxa ay og yihiin mooyaane wax kale inaan ardayda loo dhigin marka tacliinta la horumarinayo macnaheedu ma waxa weeyaan dugsi intaad keento dowlad kale ka socda inaad faraha ka qaado oo wixii la doono ardayda loo dhigo sidee baa tacliinta loo horumariyaa isla markaasina looga warhayaa in wixii lagu talagal la dhigayo in kale waxa eeg Cabdishakuur waxa jira iminka dunida hore bay martay sidii bariyii hore dunidu uma xigxidna waxay yiraahdaan you don't need to reinvent the wheel uma baahnid in taayirkii dib u samayso taayirkii waa jecel marka iminka dunidu waxaad ka soo qaadanaysaa boqolaal dowladood oo muslimiin baa jira waxaynu ka soo qaadan karnaa borogaraamadoodii wasaaradeenuna wasaarad baynu leenahay wasiir baynu leenahay wasiir ku xigeen baynu leenahay agaasimayaasha kuwaas wadiifadoodu waxay tahay inay policy dejiyaan siyaasadda tacliinta wadankeena iyaga dejinaya iskuulku ama cid doona ha noqdo ama cid waajibo Mareykan waxa jira iskuulo Soomaali maamusho laakiin haddana maxay ku shaqeynayaan de policy school waxay ku shaqeynayaan policygii dawladday ku shaqeynayaan kama bixi karaan
anigu waxaasaan doonayaa inaad dhigto haddaad mathkii waxaan doonayaa waxaa dhigto geographigii ama geography waxaan doonayaa waxaa dhigto taariikhdii historygii waxaas from KG-ga ilaa iyo 12th grade waa wax laga doonayo ilmahaas inuu barto waa wax la og yahay waa dawladda 300 milyan way naga weyn tahay way naga dhaqaalo badan tahay Soomaaliland iyo iskuma qiyaas karo laakiin haddana waxa laga soo qaadan karaa Malaysia oo saasoo si kale waa dawlad muslima waa dawlad harun martay way haddana waa dawlad muslimnimadeedii ilaashanaysa Indonesia waa sidaas oo kale way maxaad ku talinaysaa imika abaarsa way hadleen waxay yiraahdeen macallimiinta ajaanibka waan control ama waan ilaalinaa waxa ay ardayda kula hadlayaan waan ka dheeraana inay arrimo diimeed ka hadlaan gabadhana wax khalad ma sameeyeen wasaaraduna waxay tahay baaritaan ma sameeyeen adigu cilmiyan markaad wixii u taqaano maadaama masters ku qaatay horumarinta cilmiga iyo waxbarashada xarumihii waabay aasaasan yihiin way shaqeynayaan sanado badan way jireen dadka qaar waxay ku doodayaan heer la baabiin karo ama la xiri karo mid taagna sidee baa loo sixi karaa wixii haddii qalooc jiro looga saari karaa oo ay u noqon karaan xarumo reer galbeedkuna maamulo Somalilandna uu ah meel ay wax ka kororsan kartaa ardayda horta Cabdishakuur marnaba ma joogto arrintu in la xiro horta iskuuladan waa iskuulo taaba qaaday waa iskuulo muddo badan jiray inana waynu u baahanay runtii waynu u baahanay laakiin haddana waynu u baahanay macnaheedu ma aha waad baahantay looma bahalo waxay noqonaysaa inay noqoto oo la helo si iskuuladan loo maamulo oo iskuuladan ma badna imka iskuuladan ma badna dhowr abaarsa jira foora jira dhowr hay-adood baa soo dhex galay tacliintii imka iskuuladan ma badna dhowr abaarsa jira foora jira dhowr hay-adood baa soo dhex galay tacliintii mana badna oo waa la ilaalin karaa ma aha kuwa dadka ajaanibka ah ama reer galbeedku hayo oo keliya iskuul kasta oo ka socda dad ajaaniba waxa waa in si gaar ah loo ilaaliyo waa in loo xil saaraa dad la taaba qaadi karaya iyaga dadka ajaanibka ah ee dabadda oo muslimiin oo la taaba qaadi karaya horta marka hore waa in loo xil saaraa taabaqaadku waa muhiim waayo taabaqaadku imka de waxa weeye dadka qaar imka dunidii hore martay cilmigana haru maray markaas waxyaabo yar yar oo aan dadku qaar aanay dareemeynin qof u fiirsanayo oo garanaya waxa looga jeedo oo dhaqankoodii fahmaya iyo siday wax u gaarsiin karaan ardayda baa horta loo baahan yahay way maxaa ka dhalan kara hadiiba dawladdu ku qanacdo shakhsiyaadkan inay maamulka iyo wax dhigista sii wadaan oo baaritaanka ay ka soo baxdeen si shaqeeyaan maxaa laga filan karaa dadkan ay bulshadu ka shakiday sidee baa looga filan karaa inay soo saaraan shil cusub jiilka cusub waxay soo saari karaan de waxay ku xiran tahay ajandadooda maxay tahay ajandadoodu waxay ku xiran tahay waxay ku soo saarayaan dad kula mid oo ka caqliya dad kula mid oo ka caqliya dad waxay ku soo saarayaan dad aanad waxyaabo aanad dhaqankaaga iyo diintaadii aanad raalli ka ah ama aan la taaba qaadeen oo bay soo saarayaan waxay soo saarayaan qof Soomaaliya aragtida Soomaaliga laakiin maskaxdiisu aanay Soomaali ahayn ama sidoo wuxuu arkay aan Soomaali ahayn way soo saarayaan marka taasi maxay keeni kartaa mustaqbalka taasi waxay keeni kartaa dhibaatooyin badan bay keeni kartaa dhibaatooyin badan bay keeni kartaa dhaqan aanaynu raalli ka ahayn bay keeni kartaa waxyaabo badan bay keeni kartaa oo dhaqan gedis bay keeni kartaa oo dhalinyaro dhaqan gediyay baaynooma diinta oo kale ka hadlimayno laakiin waxyaabo badan oo iminka aan mar la soo qaado ay ka mid tahay iminka sheekadan lesbianka iyo genderka iyo LGB iyo waxyaabahaas oo kale jinsiga la xiriira oo kale oo inay dadka adigu caadi u arkays laakiin waxa la sameeyaa wax nin caadi u arkayo way dadku waxay soo din karaan Soomaali badan baa qurbiyo ku dhaqan oo dhaqamadan laftooda daris la ah oo halka ay joogaan way ka jiraan marka Somalilanderka ama Soomaaliga geeska Afrika jooga maxaa loogu xuquuqinayaa maadaama Soomaali kumanaan ay adduunka kala joogaan oo arintan ay ku dhax nool yihiin oo bulshooyin waxan ku dhaqma ay ama daris yihiin ama dalku wada nool yihiin oo aan la yaab ahayn halkaasna caruur ku dhalanayso maaragtay dad badan ku soo koreen aqliyada kuwa halka jooga oo kale miyaa halkan looga baqaya okay horta waa su'aal fiican
kuwa halkaa jooga Cabdishakuur horta dhibaatadooda ay qabaan oo adiga arkiya sanad walba waxa la keenaa kumaan kun la leeyahay dhaqan celin loo soo celiyo kuwa laftooda de ma aha waxay dantu waxyadu ay doorteen wax dantu ku qasabtay midda labaad kuwaas waxay kuwan kaga duwan yihiin kuwaasi way la taaba qaadeen oo waxaad arkaysaa iminka waxa lagu qabtaa Minnesota de tahfiid quraan baa lagu musaabaqa tahfiid quraan baa lagu qabtaa adduunka waxaad arkaysaa tahfiid quraan mid ma ka yimi Sweden mid ka yimi Norway dadkaasi waa dad intooda badan in badan oo dhibaatadaas ay gaadheen way jirtaa hadeeg inagu inaynu dhanka un madow ka eegna maaha markaas dadkaas horta way la taaba qaadeen inanka yare imka Minnesota jooga ama jooga Ingiriiska jooga ee ku dhashay wadankan ee Ilaahay siiyay aaba iyo hooyo wan fiican oo ilaaliya wuu garanayaa waxyaabaha looga soo dusayo wuu garanaya waxyaabaha looga dhigayo inay caadi tahay wuu garanaya inaanay caadi ahayn laakiin tani kuwani waxay kaga duwan yihiin waayo aragnimadii baa la isku dhaafay Cabdishakuur oo inan ka yar waa nin waaye araga oo ilaa iyo maalintu taaba qaadayay ilaa iyo maalintu dhashay ilaa iyo maanta dadkan dhex taagna oo fahansan qaar badan oo raacayna way jiraan nasiib daro qaar badan oo raacay way nasiib daro imika nisbada hadaynu ka soo qaadano nisbad weyn baa raacday dad badan oo jeelasha ka buuxaarana way oo aad uga buuxaana way jiraan laakiin haddana waxaad arkaysaa namaadij ama dad aad u fiican oo la soo qaadan karo oo la taaba qaaday oo la qabsaday oo garanaya la garanaya iminka markay inay yar badan arkaysaa supermarketka taagan Cabdishakuur oo culbad cunto ah sida uu eegayo ka eegaya big product ama wixii ka soo baxay khanziirka ama doofaar wixii laga sameeyay sida uu eegayo akhriyayo oo garanaya meel kasta oo bahalkaasi uu soo galay waxa laga yaabaa dad badan inaanay cuntada halkan joogta laga yaabaa marka qaarkood inaad ka hesho waxyaabaha caynkaas oo aan dadku aanay wacyiga u lahayn laakiin dadkaasi wacyi bay leeyihiin naga duwanba aadaro marka maadaama aduguna muddo qurba ku soo nooleed arintana aqoon aad u leedahay maxaad ku talinaysaa si xarumahan loo toota wanaagsan loogu hubsado horta marka ugu horeysa waxaan ku talinayaa horta wasaaradda tacliinta waa inay doorkeeda qaadataa doorkii wasaaradda tacliinta waa muqayyab wuu maqan yahay runtii wasaaradda tacliinta shaqo ku male iminka waa markii labaad baan maranayaa sanadkii waxyaaba caynkaas oo la hadalhayo waa markii labaad weeye wasaaradda tacliintu markaa way maqan tahay wasaaradda tacliinta horta waa in la facyiga waa in la geliyo iyadaa ka mas-uula dad badan baad arkaysaa madaxweyne wax kasta ma qaban karo madaxweyne dad buu igmaday dadkii uu igmaday waa inuu isaguna la xisaabtamaa isagu waa qof keliya weeye laakiin wasaaradda tacliinta baa xilka ugu horeeya iyo mas-uuliyadda ugu horeysa wasaaradda tacliinta ay saaranta waxa loo baahan yahay waa mise iskuul 10 iskuul 20 iskuul war deris kasta oo ay dhigayaan waa la ogaan karaa midda kale labaad anigu waan ku talinay waxa weeye iskuuladan maxaa loogu diiday inay noqoto maamulayaal qof muslim ah ama qof Soomaali su'aasha is weydii miyay soo waayeen dunida caalam islaamka oo dhan miyay ka soo waayeen qof iskuulka maamul kara aan baadiriyada ahayn hay oran miyay soo waayeen ugu dambeyntii miyaan mas'uuliyadda lala wadaagan wasaaradda waxbarashada oo wasaaradda diinta ciidamada immigrationka ee dalka meelaha laga soo gala jooga ilaa marka u dambaysa madaxweynuhu miyaanay mas'uuliyad wadareed ahayn intaas oo dhan loo soo dhaafay waatay bulshada dhan bay saarantay anigay saarantay anay saarantay kulliga waa saarantay halkan waxa maanta ay keeneen waxa weeye waa taawi mas'uuliyadayna saaran weeye dhammaanteedba waalidiinta wasaaraddu marka ugu horeysa wasaaradday saarantay waalidiintay saarantay adiga iyo anigay saarantahay culimaadiinkay saarantay qof walba way saarantay immigrationkay saarantay laan iyagaas immigration ma oran kale way siinayaan laakiin waxa weeye permissionka marka ugu horeysa wasaaradda soo bixinaysa inuu qofkani soo galo background check baxa lagu sameeyaa iminka Mareykanka koo kale ninka inkasta macallin iska noqon kari maayo war caruurba ma la dhaqmi kartid caruur ma hayn kartid haddaan backgroundkaaga la soo ogaan oo background check lagugu samayn oo la ogaanin waxaad gashay waxaad guddo oo dhan ma noqon kartid iminkana wuu iska soo degayaa qaarkood macallimiin ma yihiin la isweydiiya horta dadkan macallimiin ma yihiin waa inaad ogaataa xagay ka socdaan xagay wax ku soo barteen iskuulladay ku soo barteen ka labaad midda kana aan doonaya inaan sheego waxa weeye war macallimiin war waalidiintan intay ilmahooda soo qaadaan
iskuul intay ku hordaadiyaan ka dhaqaaqaya war ilaahay ka baqa ilmihiisi yara buu soo qaadaya wuxuu dhigaya albaabka iskuulka halkaasuu ka noqonaya wax allaale wuxuu ka ogyahay ilmaha yar noloshiisa ma jirto anigu waan u fiirsada wax allaale wuxuu ka ogyahay ma jirto waxa weeye waalidiinta mas-uuliyad baa ka saaran iminka iskuulkan abaarsa oo kale maaha iskuul aan oran karno hadafkiisu markii hore wuxuu ku bilaabmay inuu noqdo iskuul caawiya dadka danyarta ah iyo dadka agoomaha iyo waxyaabaha wuu ka tegay iminka 80% of dadka iminka shaqeeya ama I think 60% waa qurbo joog iminka wax kale dadka wax ka dhigta full tuition bay bixiyaan lacag bay bixiyaan $5,000 bay bixiyaan marka maxaa cadeynaa dadka meesha jooga wax badan u badan yihiin dadka magaalooyinka dee waad caadi wala la hadli karayo waad ogay dadkaas waa caadi taas waa caadi three tuition bay qaadaan iskuulkaas waay mid waa 5,000 waay waxa weeye ilmihii yara baasaboorka haystay ajnabiga haddii baasaboorka ilmaha haystay iskuulka geliso dad badan baa dhaqan celin iyo Soomaaliya iyo wadanka af Soomaaliya iyo dhaqan Soomaalida barta u soo celiyay ilmahoodii marka 5,000 bay ka qaadaan waay dadka ku nool wadankan imka adoo kale dadon ilmaha geyso $2,000 sanadkii waay that's a lot of money way lacag badan weeye taas Soomaa waxay qaataan oo kale group yar oo kooban oo ay yiraahdaan ay ka soo qaadaan imtixaan u gala intaasi saa uma badno waa laga batay imka waa laga batay markaas iskuuladani waxay u baahan yihiin nimankan ha maamusheen iskuulkii laakiin qof Soomaali iskuulkan the head of the school waa Soomaali noqdo iskuul kasta oo jooga qof la taaba ka qaadi karayana oo cilmigi iyo tacliinteedii leena waa inuu noqdo